weligaa maad maqashay dahaarka cad ee ilkaha lagu dahaaro ee veneer. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Dr. Fawzi Qole. muuqaalka waxaan idinkula wadaagi doonaa macluumaad ku saabsan veneerska ama dahaarka ilkaha. balse inta aan gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan la wadaagtid asxaabtaada si uu u gaadho dad fara badan. veneer waa layer ama waa dahaar loogu talagalay in lagu dahaaro ilkaha qaybta hore ee qofka bini'aadamka. qofka bini'aadamku u baahan qurux waxa uu samaysan karaa waxa loo yaqaano veneers. haddaba yaa u baahan veneer ama ayaa isticmaali karaa dahaarkan cad ee ilkaha? kow, waxaa isticmaali karaa qof iligiisii broken teeth ama uu ka jabay iligiisu. sidoo kale waxaa isticmaali karaa qof uu iligii discoloration kaga dhacay ama midabkiisii uu doorsamay. sidoo kale waxaa isticmaali karaa cracked teeth ama qof iligiisii uu ka dilaacay. sidoo kale waxaa isticmaali karaa ilig ka yar iligii normalkii markuu ka yaraado ayaa qof uu isticmaali karaa. haddaba veneersku noocyo fara badan ayaa loo qaybiya ama dhowr nooc, laakiin waxaa jira laba nooc oo ugu muhiimsan: composite veneer iyo porcelain veneers. saan wada ognahay, veneersku waa shayga ugu isticmaalka badan leh ee hadda isticmaalaan sida ciyaartooyada, actorska iyo soo kale dadka influencerska ama saameynta kale caalamka. veneer haddaad u baahan tahay fadlan si degdeg ah u gaadh dhakhtarka Apple Dental Clinic. soo kale veneersku waxa weeyaan dahaar kaas oo iminka muddooyinkii ugu dambeeyay 10 sano ugu dambeeyay si aad iyo aad loo isticmaalo. haddaba muhiimaddu haddaad u baahan tahay farxad, qurux, dhoola cadayn iyo weliba ilko cadcad oo dhay ah waa inaad isticmaashid layerkan loo yaqaano veneers. veneers markaad isticmaalaysid kow waxaad u baahan tahay lacag ama kos. soo kale waxaad u baahan tahay in iligaagii lagu beergareeyo ama lagu diyaariyo. intan muuqaalka xiga kulmi doono waana Dr. Fawzi Qole ama idinka tagay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.